geesi hadda maqasho waa ninka geesigii baarlamaanka oo ahaa oo si fiican ayuu dadka shacabka u dooday asagoo shacabka u dooda ayaa lagu oriyay oo wili mikrofoonka xataa laga qaata xataa bal fiiriya ninkan geesinimada iyo awoodda uu hadlayo shacabka u dooday waa geesi baarlamaanka dhex jira waay inkiro oo la yiraahdo dadku waa dharagsan yahay xaq ma in la yiraahdo rabsho kamid bay maqlaysaa feedka hay saarina marka hore isu dego naga daayo hadal maanta ahayn ninba markuu dabcan boonta runta ka hadlaa feed saaraysa naga daayo nimayo waxaanu leenahay hanti darro dalka kama jiro yaan dadka masaakiinta lagu rafan waxaanu leenahay oo aanu leenahay walaalayaal canshuurta lacagta dalka hadii lama waxay Soomaalidu ku mahmaadaa irmaan yaro aqoon xumo irmaan yaro ka daran lacagta dadka jeebkiisa galaysa oo aan marnaba dadka shacabka looga naxay ma qaadi karo dal mana qaadi karo in mid kale la sii saaro walaalayaal gudoomiye hoos dadka ha loo fiirsho yaan la noqon intaan anagu is dhagatiro dadka la kiciyo sidii kuraastii Sheekh Xasiina madaxa kuraasta nadaan ku fadhinayo shacab ku qaadanayo yaan dadka la tusi waxaanu leenahay dadka loo qaafleedsho ha loo naxo wasaaradda xukuumadda tayaxumadeeda halkaana wasiir soo istaagaya wuxuu leeyahay mushaarkii la kororsaday yaa kordhiyay soo adigu ma aysan kordhiyay yaa keenay dhibka soo iyagu ma ay keenin waxaanu leenahay tayaxumada iyo maaragtay maamul xumada la iska daayo hoos loo fiirsho dadka shacabka boqolkiiba boqol dalka baahiyo kama jiro maamul xuma ka jira dadkana veedka ma qaadi karaan gudoomiye waliba adiga gudoomiyaha waxaanu ku leenahay ninka labaad oo dalku badbaado ka raba in la inkiro oo la yiraahdo dadku waa dharagsan yahay xaq ma in la yiraahdo rabsho kamid bay maqlaysaa feedka hay saarina marka hore isu dego bal fiiri waa wada dhageysatay markuu rabo inuu ka hadlo arin oo muhiim oo cadaalada oo shacabka u hadlayo gadaal waxa la orinayaa oo warkiisa ayaa buuq la gelinayaa marmar qaar waa la handadaya oo mikrofoonka in laga qaado isku dayaa oo la caburiyo wuxuu leeyahay markii runta laga hadlayo maxaa u buuqday naga aamusa wiligu eebino ilma adeeryaalo waa ogeeyeen gabadha kale xildhibaanada inay noocaas kale ahayd ayadana ugu shacabku doodaysay ayana buuq la gelinayo iyo aflagaado maanta ninkan kale ayaa soo baxay oo shacabku u dooday bal fiir ilaahay nagu dharshay ninkan wuxuu leeyahay mudnaan gooni muuqaalka loo shargaleeyo hala bunbuniyo ninkan wanaagsan waaye sidoo hadlaayo cajiib waaye buuq ayaa la gelinaa bal fiir markuu hadlaayo oo u hadlaayo shacabka Soomaaliyeed waxa wal buuqaya gadaal aqsa buuqa ka socdo rabsho in warkiisa rabo in laga dhigo qaraar macna oo lagu soo leeyahay sidoo macnaha shacabka si u hadli karta ama sideertu u hadli karta ayaa lagu haysaa warkii oo hadlaayo khudbada ayaa laga dhaxgalayaa buuq ayaa la gelinayaa sidoo u hadlin habay raatay war muuqaalkana qabta meel gaarsiiya adigoo aad maasan ninkaas odaga miskiinka dood ay nooga baahay inaan u doonno oo wax u qabanno muuqaalka meel gaarsiiya waa nin miskiina waa wallahi waa aabe xildhibaankii ugu horeeyay oo si xay u hadlo waa gabadha ka horeysay oo xay u aasha maanta ninka labaad ayaa baranayna maalmo qof ay cusub baranayna xildhibaan noocan kale ay noqdaan dalka uu hagaagi lahayd wallahi thumma uu hagaagi lahayd bal fiirninkan si loo qeyn lahayd asagoo hadlaayo ayaa buuq la gelinayaa sida warkiisa loo dhageysa macnaha sidee shacabku u doodi kartaa sidee shacabka aniga baareeno u doodi kartaa saas ayaa xildhibaano ay ku yihiin ninkan wuxuu leeyahay mudnaan gooniya inaan bubulno muuqaalka kor u qaadno ay u baahan yahay muuqaalkan qabta meel gaarsiiya waa xildhibaankii u horeeyay oo shacabka Soomaaliyeed si xayaatal u hadlay oo si fiican uga hadlay kasoo gabadha ilhaan hibe malahay gabadhaas kale ayna caadi ma waa gabadh aad wanaagsan war muuqaalkan hala share gareeyo bilaa alayk xildhibaankani uu muhiimsan yahay waa xildhibaan aad u baahan in loo garab istaag loo fiiriyo muuqaalka meel loo gaarsiiyo oo dunida la baro inuu yahay geesi xildhibaan oo shacabka Soomaaliyeed u doodayo misalaas u doodayo shacabka Soomaaliyeed la gelinaya buuq iyo rabsho aan loo joogin waliba ehbina la ilma yar laga buuq markii la hadlo shacabka Soomaaliyeed oo mudul qaadan karaan la gelinaya buuq iyo waxa loo joogin sida oo warkaasi u damiyo shaqare muuqaalka adiga aad maasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.